dalada guud ee jahliyadaha Somaliland ee dalka Sweden ayaa ku guuleysatay mashruuca noociisu hore u soo maray dalkan Sweden. mashruucan oo ay maalgelinayaan wadamada Sweden iyo Norway isla markaana shaqo abuur ayaa in dalka Sweden laga qoran doono 30 qof oo aqoon-yahana oo ka soo shaqeeya wasaaradaha dalka Somaliland. taasoo ay ka soo shaqeynayaan muddo sanad iyo bara kuwaasoo ay mushaharkooda bixinayso wadankan Sweden iyo waliba 20 qof oo laga qoranayo dalka Somaliland gudihiisa oo iyagana ay mushaharka siinayaan wadamada Sweden iyo Norway. mashruucan waa mid aad u weyn isla markaana wadamada Sweden iyo Norway ay markii hore ugu tala galeen inay siiyaan xukuumadda Soomaaliya ay dadaal badan oo ay sameeyeen dalada guud ee jahliyadaha Somaliland ee dalkan Sweden ay ku guuleysteen inay helaan qaybtooda. haddaba waa kuwan gudoomiyaha dalada Master Mustafa Cabdi Ismaaciil iyo xogayaha Cali Xasan iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka Bashiir Bakaala oo arinta sharaxaya. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan maanta halkan aan hadanahay gudiga dalada guud ee jahliyadaha Somaliland Sweden halkan aan runtii jecelnahay inaan warbixin yar aan gaarsiino dhamaan shacabweynaha ama qurba jooga reer Sweden taasoo runtii halkan ay la joogan xogeeyaha dalada iyo gudoomiye ku-xigeenka Bakaal iyo Cali. waxaan runtii dalad ahaan aan runtii helnay maaldoodtan qandaraas ku saabsan in aan dadka qurba jooga ee Sweden degan aan u sheegno inay dhawaan bilaabmi doonto fursad shaqo fursadaasoo runtii in dadka aqoonta leh ee Sweden degan iyo dadka reer Somaliland ee gudaha jooga runtii number kooban in aanu dhawaan ay dawladda Sweden iyo Norwegian mashruucan ka wada shaqeyn doono laga wada shaqaaleysiin doono. sidaas daraadeed waxaan jeclaanay in dadka reer Sweden inay mashruucaas ay u diyaar garoobaan. macnaha mashruucu waxa weeye in dadka aqoonta leh ee Sweden degan ama dhakhtar ha noqdo ama engineer ha noqdo ama xirfad kale ha yeeshee in dalkii uu markaa sanad iyo badh uu tagi karo oo sanadka iyo badhkaana runtii uu ka shaqeyn doono wasaaradaha iyo institute-da dalka ka jira iyo meelaha kale runtii muhiimka ee runtii dalkeenu u baahan yahay. mashruucaasi runtii dhawaan buu bilaabmi doonaa. waxaan runtii aan ku qaban doonaa ogeysiiskaas iyo warbixintaas oo runtii intan aanu maanta ka hadlayno in ka ballaaran aan qaban doonaa magaalooyin kamida magaalooyinka Sweden oo dadku runtii qurba joogu ay u badan yihiin ee ku nool yihiin. dalad ahaana waxa weeye inaanu gaarsiino in ay jirto fursadaas oo qof walba oo aqoon leh jecel sanadii badh inuu xagga uu runtii ka soo shaqeeyo uu damacsan yahay ama uu doonayaba. waana fursad runtii horena umay jirin. waana midaan runtii aan talaabo wanaagsan daladu ay qaaday. runtii aad baan uga mahad celinaynaa hay'adaha macaawinooyinka guud ee dunida siiya gaar ahaan Swedishka iyo Norwayba. mashruuca runtii aanu iminka aan kala shaqeyn doono inkastoo aan hore wala shaqeyno mashaariic intaas kuwaasoo qaar ka ballaaran tanana ay ka mid tahay waxyaalaha runtii daladu ay ku tallaabsatay horumarkeeda inay ay ka shaqeeyaan. mashruucan runtii waxa kharashkiisa dadka ka shaqeyn doona bixin doona hay'adaha aan soo magacaabay iminka sanadka ay barka ay shaqeyn doonaan. tira ahaan numberku wuxuu noqon doonaa 30 qurba jooga oo Sweden laga qaadi doono ama ka tagi doono ama codsan doona baan idhaahdee shaqooyinkaas haddii la yiraahdo iyo 20 wadanka gudihiisa ilaa hadda ma garanayno wasaaradaha ama wakaaladaha ay ka shaqeyn doonaan ama dawlad hoose ha noqotee laakiinse marka ay aan ogaano iminka assessment-kii baa socda iyo meelihii ay runtii dadkaasi ay ka shaqeyn doonaan waxaanu ku xiran tahay wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo institute-da dalka ka jira iyagu inay baahida soo sheegtaan ay yiraahdaan waxaan u baahanahay number
dad senior advisors oo ka shaqeeya meelaha aan soo sheegay marka hadduu ilaahay raado inta kalena waxaa dhammaystiri doona cali iyo bashiir bakaal oo iyaguna runtii arrintan aad igala soo shaqeeyay oo u mahad celinayo dalad ahaan sidaas daraaddeed marka aanu qaban doono magaalooyinkana waanu soo sheegi doonaa waxaan halkan aan jeclay inaan hadalkayga aan ku soo gabagabeeyo in hadduu ilaahay raado dhowaan sidoo kale aanu qaban doono mashaariic sidan oo kale qaar la mid ah oo ku saabsan mashaariicyada samafalka ururadu runtii diaspora iyagana ay dalban karaan oo waliba gaar ahaan qolooyinka NGO-da maxaan ku raama Swedish aan waxa lagu yiraahdaa foreigning kuwaas oo iyagana dalka ka bilaabmi doona kuwaasna runtii waan gaarsiin doonaa maadaama daladu runtii ay u shaqeyso dadka qurba jooga ah wax badan aan ognahay fursado badan ay jiraan dalkan waxaan jeclaan lahayn dadka fadhi ku dirarka dalka jooga in ay runtii ay ka faa'iideystaan waxa weeye aqoon badan baa taala fursado badan baa yaala dhaqaale badan baa dalka yaala aan waxaan oran lahaa laga faa'iideysto dadkuna aynu ka muuqano aqoontuna aynu dalka geeno inaguna aynu wax raadsano dalkeena iyo dadkeena aan u shaqeyno taas ayaa runtii wanaagsan inaguna inaan isku duubnaanaa dalad ahaana waxaan jeclahay inaan dadka aan ku guwaabino aanu ku dhiirigelino inay midnimada iyo wada shaqeyntu ay runtii taa waxa kaliya ee meel lagu wada gaari karo anagu runtii xogaal badan baan u xunahay inteeda halkan fadhiyo wax walba ognahay taa kaliya aan ka shaqeynaa waxa weeye in aanu wax dadku wax u taraya ama se horumar maxaan ku dhahdaa keeni kara inaanu ka shaqeyno waana ka shaqeyn doonaa hadduu ilaahay raado insha Allah ballantu waxay noo tahay kulamada soo socda ee 4 magaalo ee lagu kala qaban doono ee dadku ay u badan yihiin qurba joogu wixii dambena Facebook aad ka heli doontiin iyo website-ka daladu ay leedahay iyo meelaha kale ayaa ku cilaamin doona halkaas runtii aad kaga soo qayb gali doontiin kulamadaas dabadna wixii ku saabsan habka loo sameyn doono sida loo dalban doono CV waxa soo dhanna aan idin sharaxi doono aad baad u mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore ilaahay baa mahadle sida uu gudoomiyaha uu sheegay Mustafa maanta halkan waxaan runtii aan u fadhinaa inaanu dadka la qaybsano barnaamijkan ama maxaa la dhahaa mashruucan bilaabi doono dhawaan mashruucan oo ku salaysan mashruucan oo ah mashruuc ay runtii maalgelinayso dawladda Sweden iyo mataqaanaa iyo qayb Norwegian-kii mashruucan waxa lagu tala galay waa diasporada Somaliland runtii deegan mataqaanaa Sweden ayaa loogu tala galay inay ka faa'iideystaan waxaana wax kalena ma aha waa mashruuc la doonayo in dibadhis loogu sameeyo dalkii in dalkeena wada ogtiin caqabado badan baa hor yaala marka la eego capacity-googu iska xadeysan yahay waxyaalo badan oo xadeynaya ayaa jira horumarkii marka waxa lagu tala galay 30 qof ee Mustafa uu sheegay insha Allah dalkii la geyn doono diasporada ah ee Somaliland waxa lagu tala galay inay ka qayb qaataan horumarinta iyo kor u qaadida awoodda hay'adaha dawladda Somaliland taasoo mataqaana runtii target groupka marka la raadinayo waayo target groupkan raadinayna in rabno inay halka ka hawlgalaan waa dadka academic-ka shuruudda ku xidhan waxa weeyaan waa inuu ahaado qofku heer jaamacadeed ama uu lahaado xirfad sare taas muhiimadda koowaad ta kale marka waxa weeyaan sida Mustafa sheegay kulamada aanu qaban doono waxa lagu qaban doona halkan Stockholm waxaana lagu qaban doona Örebro waxaan runtii rabnaa inaad nagala qayb qaadataan iyo Taborina waa lagu qaban doonaa iyo Malmo inaad faafisaan nagala qayb qaadataan sidii aynu gaarsiin lahayn ay dadkan mataqaanaa aynu u baahanahay aqoonta leh ee kartida leh wadankii markaa lagu geyn lahaa waxa kaloo iyadana barnaamijka daba socdoon hay'adan kala shaqeyn doona oo la dhisi doona database-kaasi wuxuu noqon doonaa database ay iska diiwaangeliyaan ama registration ay ku sameeyaan dadka xirfadaha leh ama aqoonta leh mataqaanaa jaamacadaha halkan dhameeyay marka taasi database-kaas dadkaasi iyaga iskood isku diiwaangelinaya macluumaadkooga waxa dhamaantood hay'adaha dawladda ee Somaliland waxa loo siinaya access
si markaa wixii baahiye markaa iyaguna halkaasi ama xirfad ay u baahdaan ama ay u baahdaan expertise ay halkaa mataqaana runtii uga raadin karaan marka barnaamijkan waxaa kaloo runtii aan doonay magacaabe iyadana ku jirta gabdhaha yacni gabdhaha waxaan rabnaa runtii inay dumarkuna aada uga qayb qaataan sida imiga la qorsheyna 30% ayaa loo qundiyay inay haweenku runtii ay mataqaanaa noqdaan groupkaas expertise-kii loo diri doono dalkii marka waxaan fariin halkan xitaa uga dirayaa gabdhaha academic-ka iyaguna mataqaanaa in ayaga laftiga loo baahan yahay oo horumarka aynu dalkii ka shaqeynayno qaybtooda inay ka qaataan marka waqtiyadana waan idinku soo noqon doonaa insha Allah kulamada waqtigeenu qaban doono aad iyo aad baan runtii idin salaamay waan mahadsantiin run ahaantii farxad weyn bay noo tahay shirkan jiraayadan maanta qabanayno ujeedadiisu ay tahay in bulshadu ay ka faa'iideysato oo dalkii loo faa'iideeyo dadkuna ay ka faa'iideystaan dadkeena aqoonta leh iyo ay aragnimada ee qurbaha jooga si wasaaradii capacity-googa iyo bulshada adeegoogii horumar ay ka sameeyaan maanta mahad weyn baa ilaahay baa leh fursaddan aan ku guulaysanay oo aan hore uga jirin Somaliland hore ayna u helin oo maanta kulley bulshada Somaliland la gaarsiin doono insha Allah taala una furan qof kasta oo aqoon leh oo shaqaale ahaan ka qayb qaadan kara buuxinna kara kraafka ku xidhan iyo shuruudaha ku xidhan kana geli doona tartan iyo waajibaad madax bannaan oo laga qaadi doono imtixaan furan oo kulley faahfaahin dheeraada laga heli doono shirarkan ku qaban doono Stockholm iyo Örebro iyo Tabori iyo Malmo farxad weyn bay noo tahay barkhad cabdilaahi maxamed Home Cable TV magaalada Stockholm ee wadanka Sweden